waxaa maanta si weyn iyaduna looga ciiday dalka Malaysia oo kamid ah dalalka Islaamka dhacana bariga fog ee qaaradda Aasiya. warbixintana halka waxay nooga soo diray wariyaheena Ahmed Abikar Asari. dalka Malaysia oo kamid ah dalalka Islaamka isla markaasina ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee qaaradda Asia ayaa maanta waxaa si weyn looga oogay salaada ciida iyadoo dadweyne fara badan oo Soomaaliyeed ay isugu yimaadeen jaamacadda Islaamka ee wadanka Malaysia halkaas oo lagu tukaday salaada ciida laguna qabtay fantasiyo lagu weyneynayo munaasabadda Ciidul Fidri. dadweyne fara badan oo Soomaaliyeed ayaa lagu arkay wadooyinka waaweyn iyo goobaha dalxiiska iyagoo isugu hambalyeynaya munaasabadda Ciidul Fidri oo ay ku beegneed maanta waxayna isla dhaxmariyeen ciid mubaarak iyo ereyo kale oo muujinaya farxadda ciida. haddaba waxaa inoo suurto gashay inaynu mikrofoonka TV-ga Somali Channel la dhex qaadno qaar ka mid ah dadweynaha ku nool wadanka Malaysia iyagoo cabiraya dareenkooda ku aadan munaasabadda Ciidul Fidri. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. magacaygu waxa weeye Sayid Maxamed Cabdillah Xasan. waxaan joogaa Malaysia jaamacadda UAI-da masaajidkeedan ku tukanaynaa. waa maalin ciida waa ciidaynaa. halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan kullu caam wa antum bi khayr baan dhammaantood u rajaynaynaa. waxaan si khaas ah u salaamayaa oo ula ciidahayaa muslimiinta Soomaalida muslimiinta meel kasta ay joogaan. waxaan leenahay kullu caam wa antum bi khayr. waxaan si khaas ah u salaamayaa faamilkayga meel kasta ay joogaan dalka iyo dibadda. Bismillahir Rahmanir Rahiim. aniga Cabdisalaam Maxamuud Cabdullaahi waxaan u hambaleynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada Soomaaliyeed bulshadana Soomaaliyeed meel walba ay joogto ciidatan ayadoo noo timaad anagoo faraxsan waxaan leeyahay kullu caam wa antum bi khayr ciid wanaagsan. Bismillahir Rahmanir Rahiim. anigoo magacaygu yahay Mawlid Cabdi Xuseen waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay kullu caam wa antum bi khayr. waxaan gaar ahaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed dalka dibaddiisa joogta waxaan leeyahay kullu caam wa antum bi khayr sanadkan sanadkiisa ciid wanaagsan. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta aan u baarikayaa ciida Ciidul Fidr Mubaarak. ilaahay naga dhigo kuwa ka aqbalay ciida maxay tahay ramadaanta siyaamkii iyo qiyaamkii waxaan salaamayaa wali ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaanba. waxaan salaamayaa dhammaan islaamka adduunka dacaladiisa kala jooga khaasatan min familkayga waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bi khayr. Assalaamu alaykum. halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan muslimiinta meel walba ay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. dhammaan waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed ummadda Islaamka dhammaan ciid mubaarak kullu caam wa antum bi khayr meel walba aad joogtaan dunida. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. aniga waxa ahay Maxamed Cabdullaahi waxaan rabaa inaan salaami hooyada iyo aabahay iyo kull familygayga shaqan ismo waxa rabaa inaan ku dhihay kullu caam wa antum bi khayr. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi. waxaan hambaliyo u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Islaamka meel kasta joogto familkayga iyo asxaabteeda inta maqalkayga muuqayga taqaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan. dan magacayda ii sheego waa Cabdirasaaq Khadar Haybe waa maalin ciid oo aad noogu farxad badan waxaan leeyahay dhammaan ummadda muslimka meel kasta joogaan kullu caam wa antum bil khayr. Bismillahir Rahmanir Rahiim. magacaygu waa Cabdiraxiim Maxamed Axmed waxaan idin leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto hambalyo ciid wanaagsan kullu caam wa antum bi khayr. gaar ahaan waxaan u hambalyeynayaa familkayga oo ku kala nool dalka dibaddiisa gaar ahaan waxaan u sii hambalyeynayaa hooyaday Bishaaro Sheekh Nuur oo ku nool magaalada Xamar. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. kullu caam wa antum bi khayr. munaasabadda ciida awgeed waxaan doonayaa halkan aan uga hambalyeeyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto gaar ahaan familkayga oo ay horeyso hooyaday Macaan Saare Ibraahim Badmaax aabbahay Cabdullaahi Yuusuf Xayle Bilaadi waxaan doonayaa inaan munaasabadan ciida ku yiraahdo kullu caam wa antum bi khayr iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed. guud ahaan Soomaalida ku dhaqan wadanka Malaysia ayaa maanta u dabaaldegay maalinta barakeysan ee Ciidul Fidri iyadoo wadooyinka lagu arkay Soomaaliyeed u tiro badan oo isugu hambalyeynaya maalinta Ciidul Fidri waxaana xusid mudan in guud ahaan wadamada Islaamka maanta si wada jir ah looga ciiday. Ahmed Abukar Asari TV-ga caalamiga Somali Channel Malaysia.